dawladdu waxa laga rabaa maalin walba laga hadlo wadaniyadu waxay tahay dal jaceelku wuxuu yahay in laga hadlo waxaan wada leenahay inay ka wanaagsan tahay waxa qofku shakhsi u leeyahay haddii aad waxaad leedahay ay tahay waxa ugu wanaagsan dadka kula nool oo dhan ay dhibaato ku jiraan waxba ma haysid faqri baa tahay cadaalad la waayo dagaal sokeeya imaan haddii cadaalad la waayo faqrigu waa hooygaaga maxaa yeelay qof xun aan mutaysnayn yaa meel sare la geen markaasuu wuxuu ku cayaari saas darteed dawladdu waxaa laga rabaa in ay cadaalad iyo sharcigu ay ka shaqayso inuu noqdo kii sarreeyey inuu noqdo dawladdu waxaa laga rabaa wacyigelin xoog leh inay samayso oo dadku ay educate garayso ay wax barto ay wacyigeeda kor ugu qaado maalin walba laga hadlo wadaniyadu waxay tahay dal jaceelku wuxuu yahay in laga hadlo waxaan wada leenahay inay ka wanaagsan tahay waxa qofku shakhsi u leeyahay haddii aad waxaad leedahay ay tahay waxa ugu wanaagsan dadka kula nool oo dhan ay dhibaato ku jiraan waxba ma haysid faqri baa tahay laakiin haddaad guri yar iska leedahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan guri ay saasoo kale wada leeyihiin oo dadku aysan baahi qabin oo nolol wada siman ama nolol fiican leeyihiin carruurtaada iskuul ku dhigtaan caafimaad aad haysato waxaa tahay hodan qani ayaa tahay waxaa kale dawladda laga rabaa inay sharafkii iyo sumcaddii dawladnimo iyo dadnimo iyo ummadeed inay soo celiso yaa laga rabaa dawladda oo ah in shacabkeedu horta ay taageerto dawladdeeda ciidamadeedu ay ahaadaan ciidamo wanaagsan adduunka markaasaa lagaa karaameynaya oo lagaa xurmeynaya oo lagaa sharfaya adduunka haddaad rabta in laga sharfo waa inay halkan ka bilaabato waa inaan amniga ka wada shaqeyno qolooyinka nabadiidka ah oo maalin walba ka shaqeynaya inay nafgooyaan oo ay dhiig daadiyaan oo dhaqaalaha burburiyaan oo hantideena burburiyaan inaan kulligan ka wada hortagno maxaa yeelay waa cadow dibadda nalooga soo diray loo soo diray nolosha inay ku diidaan ma aha dawladda kaliya waxay la dagaalayaan shacabka Soomaaliyeed waan idinkaga mahad celinayaa 3 sano iyo barkii inaad dagaalka qayb ka ahaydeen in shabaab la arkay waxay yihiin inay yihiin cadow shisheeye laakiin wiilasheenna la isticmaalayo oo la adeegsanayo in qof walba oo Soomaaliyeed uu ogaaday inay shabaab cadow Soomaali ay yihiin aysan ahayn cadow shakhsi ku aadan kaliya ay yihiin cadow hooyo Soomaaliyeed aan u naxayn oo dilaya wiil Soomaaliyeed oo mustaqbal leh oo dalkan difaaci lahaa dilaya askari dalkiisa difaacanaya dilaya hantidii ummadda ay lahayd burburinaya oo aanan waxba u naxayn inay yihiin inaad ogaateen oo haddaan ognahay oo qof walba oo Soomaali ah uu qaybtiisa uga jiro inuu la dagaalamo waad ku mahadsantihiin waana ka guuleysanaynaa insha Allah dagaalku waa socdaa ilaa aan ka adkaano waana jabeen waana dhibaataysan yihiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo soo hadeeyo kuwooda roon kuwooda xun oo ajnabiga ku dhex jira ilaahay inuu ummadda ka qabto yaan ilaahay ka baryaynaa waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa halganka dawladnimo waa socdaa halganka isbeddel waa socdaa annaga ku nimid isbeddel dhab ah isbeddelkiina waa socdaa waad aragtaan waxyaabaha aan qabanay waad aragtaan horumarka la gaaray laakiin weli fara kama qodna hawl badan baa noo harsan waxaan rajaynayaa halgankaas iyo isbeddelkaas joogtada ah oo horu socodka ah sidaad uga jawaabteen inaad uga jawaabtaan oo aan horumarino mustaqbalka carruurteena aan horumarino wadajirkeena aan xoojinno